nabadeed dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka baraarug oo ah toddobaadla diiradda saari doona kor u qaadista wacyiga bulshada ee halista cudurka HIV/AIDS iyo daryeelsiinta bukaannada la nool xanuunkan. dadka la nool cudurka HIV/AIDS waa qayb ka mid ah ummadeenna, sidaa darteed waxay naga mudan yihiin inaynu caawinno, inaynu garab siinno, inaynu la talinno. waa habdhaqan liidnimo ah in lagu takooro ama lagu faquuqo xanuunka asiibay darteed, waxaana waajib ah in la sameeyo sharci lagu ganaaxayo laguna anshax marinayo cid kasta oo ay ku caddaato inay faquuq kula kacday bukaan la nool xanuunkan. waxay tani dhiiri gelinaysaa sidii loo suulin lahaa habdhaqankaasi guracan. komishanka heer qaran ee xakamaynta HIV/AIDS ayaa dhowaan shaaciyey inay golayaasha sharci dejinta u gudbinayaan xeer wax lagaga qabanaya arrintaas iyo sidii loo xakamayn lahaa cudurkan. diinteenna suuban ee islaamku waxay waajibisay in la daryeelo bukaan kasta oo xanuun la soo darso. haddaba toddobaadkan iyo barnaamijkeenna baraarug waxaa marti inoogu ah sheekh daa'uud muumin cali oo ka mid ah culimaa'udiinta somalilan. waa kan isaga oo ka jawaabaya su'aal ku saabsan halka ay diinta islaamku ka taagan tahay dhowrista sharafta aadamaha. waxaanu yidhi: bismillaah, alxamdulilah, asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam. diinta islaamku sharafta aadamaha waxay ka taagan tahay meel heer saraa, waayo waa diinu nasiixa, waana diinu caam. waa diin ilaahay koonkan oo dhan ugu talagalay aadamka iyo makhluuqaadka maaragtay badbaadadiisa. marka waxay ka taagan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa wuxuu ku yidhi: walaqad karamnaa bani aadam. bini aadamka waanu karaamaynay ayuu subxaanahu wa tacaala rabbi yidhi. karaamadaasi waa mid ay diinteennu ina siisay oo qodobka koobaada, oo qof kasta oo bini aadana diintu way karaamaysay inta uu xaq u leeyahay, iyadoo weliba ay qaybsami doonaan oo ay ilaa 3 qayboodba culimada qaar ay u qaybiyaan. oo marka u horeysa ilaahay uu karaameeyay aadamiga, takriimullahi lilinsaan. marka labaad, takriimul insaanu linafsihi, diinta ayayna bartay qofka bini aadanka isagu naftiisu inuu karaameeyo oonu dulaynin, inuu naftiisa karaameeyo oonu dulaynin. marka saddexaad, takriimul insaani lilinsaan, qofka bini aadanka qofkan kale bini aadanka isna inuu karaameeyo. saddexdaas takriimka iyo karaamada loo qaybinayaa. marka diinta islaamku meel qiimo leh oo ilaahay ugu talagalay oo qaaliya ayay dhigtay karaamada qofka bini aadanka. waa tahay sheekh, waxa kulan ku weydiin lahaa sidee diinteenu u tilmaantay in qofka xanuunsanaya, gaar ahaan kuwa maanta la nool xanuunka HIV/AIDS, in loo garab galo loona caawiyo? diinteenu waxay u tilmaantay si aad iyo aad u weyn oo qiimo badan. awalan, dadka xanuunkan la nooli la yidhaahdo HIV/AIDS, marka caam ahaan laga hadlo xanuunkani horta awalan waa xanuunada ka mid oo ilaahay uu keenay. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo caddeeyey dee inuu soo koonka maamulo. nebigeenuna wuxuu inoo caddeeyey xanuun kastoo imanayo inuu ilaahay keeno, dawadiisana uu keeno. marka caam ahaan xanuunku waa xanuunada ka mid ah. wax qiimo inta badan wax weyn oo kaga duwan yahayna ma jirto. xanuuno fara badan oo ka halisaysan ayaa bini aadanka ku dhaca. rasuulkuna wuxuu yidhi: ma ansala lahu daa ilaa ansala lahu shifaa, oo kama qaal ilaa ansala lahu dawaa ila alharam. xanuun ilaahay ma keeno, haddii uu keeno dawadiisa ayuu ilaahay keenaa, xanuunka gabowga la yidhaha mooyaane. taasi waa mid caama. haddii aynu haddaba xanuunkan u soo noqono, inagoo awalan xanuunkan markii u horeysay magaciisu ina soo galay dadkeenu sas bay ka qaateen oo wax si kala ah oo dad gaara ku dhaca oo dadka gaaladun ku dhaca ayay u fahmeen. laakiin macnuhu sidaa maaha. wax kasta oo xanuuna oo qofka ku yimaada, basharku waa mid uu ka siman yahay. xanuunku waa mid bashar oo dhan uu ka siman yahay. daaweyntiisa in laga bugsan karana ama ilaahay uu dawo u keenayna sidaas rasuulku inagu caddeeyay mid laga siman yahay. marka waxa loo baahan yahay dadka xanuunkani uu asiibay, diinteenu meel fiican bay siisay dadka dhibaataysan in la caawiyo morally
iyo dhaqaale ahaan intaba in la caawiyo diinteenu meel adag ayay iska taagtay siisay waxa kamida axaadiista rasuulka la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi qof idinkayda kamidi iimaan kaamila ma laha ilaa walaalkii uu la jeclaado waxa naftiisa uu la jecel yahay naftaada maxaa la jeceshay caafimaad dhaqaale sharaf horumar waxa soo dhamaad la jeceshay ilaa waxa naftaada la jeceshay qofkan walaalka inaad la jeclaato iimaan kaamil ma lihi waa tilmaam uu nabiga nagu dhiiri gelinayo qof kasta oo muslina inuu qofka muslimka naftiisa kale uu ka soo qaado marka sidan maanta xanuunka inagu halista inagu keentay ee xagga takoorka waa mid shariicadeenu ay ka soo horjeedo marnaba shariicadan aan qiil ku lahayn takoorku waa mid loo baahan yahay qofkan xanuunsanaya ee xanuunkan uu ku dhacay dadka xanuunada kale uu ku dhacay sidii loola dhaqmayo ama si ka sii qiimo badan in loola dhaqmo ama lamida in loola dhaqmo xanuuno fara badan oo kale ay nahaya macaan baa inahaya dhiikar baa inahaya maanta corona soo dhacdo inahaya qaar kale oo fara badan baa jiro inahayay sida kuwa loo xanaaninayo si lamida waa in isagana loo xanaaniyo qofkii wax takoor leeyahay aanu arag qofkaas gargaar wixii dadkan xanuunka qabay ay heli jireen haday caam tahay haday khaas tahayba oo ehladiisa ay khaas ku tahay cid mas'uulka ka intaba waa inuu helo ay diinta islaamka ay xaq u siisay qofkan muslimka wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi ilaahay wuxuu gargaarayay rasuulku yiri intuu qofku walaalkii gargaarayo haddaad walaalka gargaari weydo oo aad dhibaataysana hadalkeeda badan nabigu way naganayay oo waxa xadiisku ku nabigu la darara wala dirar qofku isna wax yoo dhibin isna yaan la dhibin qofku isna wax yoo dhibin isna yaan la dhibin waxa kale oo nabigeenu inoo sheegay man dara adarahu Allah bihi wa man shaqa shaqa Allah alayhi qofka qof muslina dhiba ilaahay baa isagana dhiba qofka qof muslina ku adkeeya arrimada ku adkeeya ilaahay baa ku adkeeya xadiistaas oo dhan waxay na tusaysaa inoo cadeynaysaa waxyaabahan cudurkan loo dhaqmay takoorku inuu xaraan yahay xagga takoorka aynu ka hadlaynay shariicadeenu meel adag ayay iska taagtay oo waxa ugu badan xanuunkan aynu ognahay ee dadka la dhibaatoodaan ama aynu ognahay inay faafintiisaba qayb ka tahay waxa kamida takoorkan qofka la cadaadinayo ee bulshadii maaragtay laga dhex saarayo marka waxaan soo qaadan doonaa bal qofka sharafta uu leeyahay qofka muslimka yeelan la takoorin noocnaba haday xanuunka tahay iyo haday khalqigiisa tahay iyo haday shaqadiisa tahay caam ahaanba uu soo galiyay isaguna waxa dhacday can Aisha radhiyallahu anha qaalat haweeneyda rasuulka Aisha ee sawjadii rasuulka ayna Abi Bakar ayaa rasuulka waxay ku tiri nabi sallallahu alayhi wasallam hasbuka min safiya kada wa kada ta'ni qasira haweeney kale oo sawjadkii rasuulka oo safiya ah aytii safiya way gaabantay inagu taa wax maanta takoor oo ma aragno wax gaaban oo wax liid matalan wax dhibana oo ma aragno hebel uu gaabayay ama hebel waa sida uu yahay oo ma aragno way gaabantay safiya rasuulku muxuu kaga jawaabay erigaas waa halka ugu hooseysa ee maanta inagu ayna waliba waxba u arag rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam laqad qulta kalimatan law masajad bima'i al-bahr lamasajadu oo kama qaal sallallahu alayhi wasallam Aisha waxa tiri kelimad hadii biyaha badda lagu daro bedeli lahayd waa safiyo way gaabantay diinteenu takoorka horta meelaha iyo meelo lamida ayay iska taagtay waxa kale rasuulku inoo soo wariyay bihasabi imri'in min ashar an yahqira akhahu almuslim qofka bashar waxa ugu filan qofka muslimka ee walaalkiisa inuu xaqiro oo wax liita oo ka soo qaado ayaa sharba ugu filan kullu almuslimi ala almuslimi haramu damuhu wa maluhu wa irda qofka muslimka qofka kale muslimka waxa xaraamka dhiigiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa marka inta badan inaga waxaynu ku taabanay qodobka aydiska qaybta sharaftaynu ku taabanay oo markiiba waxaynu aaminay hebel ama heblaaya ay cudurkaas ku dhacay meel daran bay martooyin kaar baa ku dhacdo bilaayay gashado waxaasaynu markaaba aaminay marka qofkani waxaan ula sasayaa wuxuu u aaminayaa in sharaftiisa ay dhimato ma dayo aragto qof sharaf laawa hada xanuunkii oo sheekh ku dhacay oo shariif ku dhacay oo caabid ku dhacay la waa xanuun cid walbana xanuunku waa ku dhici karaa qofka
ugu wanaagsan ee waxaynu hore soo sheegnay xadiiska qofka ugu ilaahay xaqiisa ugu dhow ayaa la itixaamaa xanuun lagu ridaa ilaa ambiyada ilaahay baa xanuun ku dhacay oo qaar ambiyada ilaahay kamid ah ay muddo 20 sano ku dhow xanuun u jiifeen sida nabiyullaahi ayuub oo kale ilaahay nooga qisooday marka waxyaabaha marka u horeysaba qofka lagu dhaleeceeyo waxa kamid ah in sharaftiisa la duro oo meel laga dhaco diinteenuna qofka inay sharaftiisa meel kaga dhacdo meel laga dhaco meel adag bay iska taagto wiciid adag baa rasuulku inooga soo jeediyay oo inaga mamnuucay waxa kale inagu dhiirigeliyay rasuulku man satara awrata akhihi almuslim satara Allahu awratahu yawm alqiyamah wa man kashafa awrata akhihi almuslim kashafa Allahu awratahu hatta yuftihahu minha wa huwa fi bayti qof muslima sharaftiisa awradiisa astura in sharaftiisa meel kaga dhicin ilaahay baa isagana maalinta qiyaame sharaftiisa iyo awraadkiisa astura qof muslima sharaftiisa meel kaga dhacay ee awradiisa isaguna kashifana ilaahay isagoo adduunka jooga ayaa qofka uu awradiisa ayuu ilaahay fashiliyo kashifa isagoo gurigiisa ba jooga oo la fadeexadeeya marka wiciid ka daran wuxuu ina siinayaa oo diinteenu inagu dhiirigelinaysaa dadkan marka la takoorayo sharaftoodii baa meel laga dhacaya waxaanu ilaahay u keenay oo qadar baa qofkan ku dhacday inta badan si anigu shakhsiyan aaminsanahay de waxaanu ilaahay keenado cid ka aamini ma jirto sheekh iyo shariif waa ku dhacaya waxa lagu kala qaadaya guurkii baa lagu kala qaadaya qalabka lagu kala qaadaya inta u badan waxa laga yaabaa saa inuu ku gudbaba qofkii wanaagsan ilaahay agtiisa ba darajada wanaagsan ku lahaa hadaad markaa waxa u malayso taa ku takorto de dembiga weyn baad galaysaa sheekh sidee ayaa ugu haboon ayaad leedahay in loola dhaqmo qofka xanuunkan maanta la nool waxa ugu haboon aan ku soo ururin lahaa awalan qofka horta in maskaxiyan iyo iimaaniyan in loo dhiso waa ta koobaad qofka in maskaxiyan iyo nafsaaniyadiisa horta in la dhiso oo la nooleeyo la soo dhaweeyo oo qofka laga ilaaliyo in qofkii maaratay oo cadaadis ama takoor uu dareemo ama khalkhal kan marka uu horeysan xintaba ku dhacaya laga biyo waayo qofka marka uu horeysaba waa in loo sheego qofku inuu bashar yahay lana itixaami karo oo ilaahay uu xanuunada keeno qadar ilaahay ay tahay xanuunada dadka ku dhacaya sida ugu dhacayaan isagana xanuunkan ugu yimi oo samro dabeedna awalan uu samro xanuunkan uu ku samro oo nafsaani ahaan qofka loo dhiso waa qodobka koobaad in qofkii nafsaani ahaan loo dhiso waliba xagga diinta laga dhiso oo loo sheego qadar ilaahay inay tahay sabirna la rabo inuu maartay xanuunkan ku sabro taasi waa ta koobaad ta labaadna waxa weeye qofkii inaanu dadkii wax takoora inaanu ka dareemin oo soo dhaweyn iyo taakulayn iyo icaano iyo nasteexo iyo caawin intaba inuu muslimiintii ka helo waa sida ugu haboon ee qofku caawimadiisa ugu haboon qofku maskaxiyana in loo dajiyo iyo aqeed ahaan maadi ahaan iyo dhaqaale ahaan qofkii in loo caawiyo ayaa ugu haboon xanuunkan inuu xanuuno waxba aanu kaga duwayn qadar ilaahay oo xanuun ilaahay inuu asiibay bal haduu ku samro waliba janno uu heli karo waayo waxa rasuulkeenu inoo wariyay sallallahu alayhi wasallam laga soo wariyay haweeney baa u timi suuxdin loo xanuunsanayso suuxdintu waa xanuun xun oo khatar badan dabku ku dhacay haduu doono qofku dabadna way washkatooto waxay tii nabi allah waan suuxa awradayduna way faydantaa ilaahay iga bari xanuunka in ilaahay iga qaado rasuulku labu kala door gali ma ilaahay baan kaaga baryaado waa laga qaadaa mise janna ilaahay ku weydiiya waad ku sabri walaakada labadaas uu door galiyay haweeneydii xilliga joogtay maanta qof jooga mala sida ma yeelana waxay dooratay waxay tii jannaan dooranaya ee waan ku sabraya waa xanuunkii suuxinta le isla markaas laga qaadaya nabigu bal qaadayo laakiin wuxuu baad raacaysaa awradeeda in ilaahay maartay muddo sunaaniga fiidmin taasi waxay daliil u tahay qofku hadii xanuunka uu ku sabro in ilaahay uu siinayo khayr badan iyo ajir badan waxa kale rasuulku inoo sheegayba uu inoo cadeeyay qofka bini aadanka waxa la itixaamaba hadba intay diintiisu tahay ayaa lagu itixaamaba adduunyada guudkeeda oo qofkan la itixaamayaaba waa qof ilaahay agtiisa khayr ku leh oo ajir badan ku leh oo ilaahay uu wanaag la damcayba qofkan la itixaamayaaba ee adduunyada lagu itixaamaya taasina waxa weeyaan waa dhiirigelin qofka ayuu tahay xanuunka oo asiibay isla markaa uu horeyso maskaxdiisa dejinaysa ugu dambeyn waxaan ku weydiin lahaa sheekh Daawud wacyigelinta ayaa la aaminsan yahay inay tahay
ta ugu sahlan ee lagu yarayn karo ama lagu xakameyn karo faafitaanka xanuunkan culimada oo ah dhaxalkii ambiyada door intee leeg ayay ka qaadan karaan hawshaas bismillaah culimadu waxaan qabaa doorka ugu muhiimsan inay ka qaadan karaan liano al-ulama warisatul anbiya bali culimadu waxay haysaa dhaxalkii ambiyada diintii iyaga ayaa dadka ugu faradhuudhuban oo ugu dhow waxaynu markaa wada ogsoonahay had iyo jeer cidda codkooda loogu maqal badan yahay ummadeena waa culimada maadaama ay yihiin cidda loogu dheganugul loogu maqal badan yahay wax kasta oo ummadda dhib ku xanuunkan uu kamid yahay iyo wax kasta oo dheefaba culimada markay u sheegaan dhigta loo raariciyaa waayo waxa la aaminsan yahay qofkan culimadii inuu had iyo jeer diintii iyo wixii nolosha aakhiriyada adduunyada hay'ada maartay saxda ahayd inuu ka hadlaayo oo wax kale maartay aan ugu dhex jirin marka waxaan aaminsanahay culimadu doorka ugu muhiimsan ugu lambar 1 inay ku leeyihiin arrinka wacyigelintiisa iyo ka qayb qaadashadiisa waa tahay aad iyo aad ayaad mahadsantahay Sheekh Daawud Muumin Cali ruuxi islaane intiisa amina oo ka adag naftiisa ka amaan helayo ilaahay ka koriya ruuxi islaane intiisa amina oo ka adag naftiisa ka amaan helayo ilaahay ka koriya walbo iswawdo edis wuxuu ku iman karo aduga digtoono iska jira HIV dhegaystayaal haddii aad rabto inaad falcelin su'aal ama xog intaa dhaafisan aad hesho waxa aad la xidhiidhi kartaa nambarka gaaban ee 328 oo si lacag la'aan ah aad ugala xidhiidhi karto dhammaan shirkadaha isgaarsiinta ee dalka barnaamijka baraarug toddobaadkan intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa waxaa soo saaridda barnaamijkan iska kaashaday komishanka heer qaran ee xakamaynta aydhiska iyo idaacadda raadiyo hargeysa dib intaynu hawada ugu kulmi doonno waa yuusuf maxamed oo idin leh ammaano allah iyo ismaqal dambo xiise leh qofkii u daris leeyahay maxaad uga sii didaa